بريتو waxaa dalka Masar ka bilaabanaya tartanka kubadda cagta ee qaramada Afrika. Waxaa iminka khadka si toos ah ugu jira Maxamed Xaraare oo inta badan garoomada cagta soo mariyay. Maxamed. farxa waa mahadsan tahay. garoomada dalkani waa la diyaariyay cooska iyo kuraasta. waxa ay sugaanba waa ciyaartooy, kubad iyo dabcan garsoore. warbixintan kooban ayaan ka diyaariyay maanta. kusoo dhawaada magaalada Qaahira ee caasimadda dalkan Masar. magaalo har iyo habeen shidan. Qaahira waxa ay caan ku tahay taariikh togan oo wax badan dunida ka bedeshay. iminka indhaha caalamka ayaa u jaleeca magaaladan aanan laga seexan maadaama ay berri ka bilaaban doonaan ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada Afrika ee 2019. garoonkan Qaahira waxa uu ka mid yahay 6 garoon oo lagu qaban doono ciyaaraha qaramada Afrika ee sanadkan. waxa uu qaadaa 74,000 oo qof. bal aan idin geeyay garoomada kale ee ciyaaraha lagu qaban doono. 2 saac oo gaari ah ayay magaaladan cusub ee sii bulaalaysa u jirtaa magaalada Qaahira. Ismaaciiliya waxa ay dhisantay wixii ka dambeeyay sanadadii 1960-maadkii. bartamaha magaalada waxaa ku yaala garoonka Ismaaciiliya Stadium. waa garoonka ugu yar ee lagu qaban doono ciyaaraha qaramada Afrika. waxa uu qaadaa ilaa 18,000 oo qof. berri wixii ka dambeeya 18,000 ee kuraasta garoonkan waxaa inta badan camiri doona taageerayaal ka kala socda Cameroon, Benin, Guinea Bissau iyo Ghana oo ka wada tirsan qaybta ama gruupka F. وهجاج إمك وحنا كسي بحنا مجالات إسماعيلية وكيالو مد كميدا جرام هذا لوجو قبض دونا عيارها قرم هذا أفريقيا. إمك وحنا تجي دونا جرام كله وكيالا سويس وأنو دين تسين دونا. ساعد يدور دقيقة أو سفر يا إن الجدود سجابا كذب. وحنا مد مجالات السويس. مجالات كميدا مجالين كدقالها دل كان لقى دقاجيو. وحكيالا مرينكا عنكا السويس. garoonkan waxaa isku arki doona kooxaha Mali, Mauritania, Angola iyo Tunisia. sidaad aragtaan kuraastu aad ay uga fogtahay garoonka. waxa laga yaabaa inay dib ku noqoto dadka ciyaaraha halkan ku daawan doona. waa maalinteeni labaad ee sahaminta garoomada lagu qabanayo ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada Afrika sanadkan 2019. waxaanu ku soconaa magaalada Al-Iskandariya. ugu dambeyntiina waxaan joogaa garoonka Iskandariya. garoonkani waxa uu qaadaa 20,000 oo qof. waxaana ku ciyaari doona Nigeria, Guinea, Burundi iyo Madagascar. sida aad aragtaan kuraasta iyo cawskuba waa diyaar. waxa ay sugayaan dad daawada ciyaartooy iyo kubad. Maxamed Xaraare, BBC Masar. farxaano garoomada ciyaaraha lagu qaban doono waa 6 garoon. waxaa jira 2 garoon oo kale oo ay noo suurtagal weysay inaad tagno oo laakiin ku yaala magaaladan Qaahira. berri ciyaarta ugu horeysa ayaa dhacaysa. halkan ayaadna kala socon kartaan wixii ciyaaraha ku saabsan. waa maasantaa farxan. aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Xaraare oo si toos ah Qaahira nooga soo waramay. wax yar kadib ayaanu isku soo laaban doonaa daawadayaal.